maydh waa magaalo xeebeed qadiimi ah oo ka tirsan gobolka Sanaag waxayna Ceerigaabo caasimadda gobolkaasi waqooyi uga beegan tahay 78 kiiloomitir. xilligan maydh waxa ka socda oo meel gabagaba ah maraya dhismaha dekad kalluumaysi oo Somaliland halkan ka wado. dekadan waa dekad inaga nagu cusub sidaad wada aragtaan waayo waxa weeye waa steel jet weeye ama dekad bir ah inaga dekad halkan hore qoryo way nagu dhisnaan jirtay ama dekadaha sabad ah aan hor u dhisnay laakiin imika dekadan waa dekad bir ah birtaas waxa weeye bir cimrigeeda san anagu company ahaan keenatig ahaan shirkadda dhisaysa anaga aanu maxay tahay hubino waxa weeye in 30 sanadood ay dekada waxba iska bedelin. dherer ahaan dekadaasi waxa ay badda madaxa la gashay 165 mitir iyada oo fayga ugu xiga baddana uu hoos u hulan yahay ilaa 10 mitir. dekadan ku taal maydh oo gobolka Sanaag ka tirsan mar ayay howlgab noqotay laakiin Somaliland ayaa bilowday dhismaheeda bishii shanaad 2021 iyada oo la rabo in la soo gabagabeeyo sanadkan 2022 bisha shanaad waxaana laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Somaliland iyada oo dekadan lagu bixiyay kharash dhan 7 milyan oo dollar. qorshaha fulinta dekadan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland ayaa gacanta ku haysa dhamaystirkeedana dadka deegaanka ayaa ka filaya inay u furto albaabo hor leh. dhinaca shaqo abuurka dekadan waxay ku soo kordhinaysaa shaqo abuur aad u ballaaran oo xagga ganacsiga iyo dhalinyarada ka shaqeynaysa. imika waxa jira dhalinyaro loo tababaray oo la shaqeynaya injineerada dekada ka shaqeynaya Kinetic Engineering Company marka waxay u sameynaysaa dhammaan guud ahaan reer Somaliland shaqo abuur la taaban karo oo wax ku ool ah. magaaladan dhismaha dekadu ka socdo waxa ay daris la tahay buuraha cagaaran ee lagu dalxiso kuwaas oo laga helo dhirta fooxa laga guro ee dalkan laga dhoofiyo. arrintaas ayaa qayb ka ah in mudnaan halkan la siiyo oo dekad laga hirgeliyo. sababta ay dawladdu halkan uga maalgelisay waxa weeye khayraadka halkan yaala si isku hal mid aan kalluun kaliya looga faa'iideysan laakiin macdantana aan uga dhoofino kalluunka uga dhoofino biyada uga dhoofino alaab wax allaale waxaan u baahanahay aan uga soo degno way dekad ee maaha dekad sida dadku qaar sheeganayaan waa dekad kalluun kaliya maaha ujeedada loogu talagalay intaas oo hab ay naga manfici doonta hadii la helaado. maydh xilligan waxa siyaadaya dhismayaal cusub oo laga hirgelinayo inkastoo ay weli jirto caqabada jidka tabca ee ku xira caasimadda gobolka. maxamed xasan dhalo Ceerigaabo.